daawadayaal farikama qodna wararka warbixinada dhinaca diblomaasiyadda qaybtan waa qaybtii labaad iyo wararkii iyo sidoo kale barnaamijkii dulmar ayaa isaguna qarka inoo soo saaran barnaamijyo kale ayaan daawadayaal idin soo hayaa barnaamijka teknolojiyadda ayaa isaguna aan meesha ka maqnaa doonin maalmaha soo socda daawadayaal aan ku bilaabo qaybtan waa bishii Janaayo 8 isla markaana aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysay dawladda dalkaasi Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay tarxiishay isla markaana ay ka soo cayrisay dalkeeda boqolaal kamid ah dadka Rohingya muslimiinta ay bacsiga lagu hay muuqaal ay heshay wargey wakaalada wararka leedahay Middle East Eye ama loo soo gaabiyo MEE ama waxa loo yaqaan isha bariga dhexe ayaa waxa ay sheegtay in ay soo gaarsiiyeen dad ku sugnaa xarunta la yiraahdo dad ku haynta ama dad ku qabashada ileeda Shumaysi Detention Center ee ku taala magaalada Jeddah ee badda gudban saaran ama badda cas ku taala dad kamid ah dadka Rohingya ayaa la arkay iyadoo gacmaha laga jeebeeyay ama gacmaha ka xiran kolkii la sheegay in ay iska caabiyeen isla markaana ay isku dayeen inay diidaan in lagu celiyo Bangladesh sida dadka iyo muuqaalka ka muuqdaba waxa mid kamid ah dadka halkaas ka hadlaya uu leeyahay anigu ma ihi ayuu Bangladesh ama Bangladesh uma dhalan waxaan ahay Rohingya isla markaana waxaan qabaa dhibaato dadkaygiina waa la dalaayay meel aan ku noqdana ma laha hase yeeshee waxa ay u muuqataa in calaalka ninkaasi aan dhag jalaq loo siin Bangladesh ayaa waxa la sheegay inay noqotay dalka kaliya ee ogolaaday in dadkaasi lagu soo celiyo hase yeeshee dawladda dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in dadkan ay qabqabatay ee kalka hore dalkooda ku yimaadeen qaab xaajinimo ama ay xajka soo aadeen kolkii dabana ay magaalada intay galeen ay shaqo iyo nolol raadsadeen isla markaana dadkooda ku sugan xiriyaha qaxoontiga dalka Bangladesh ayay lacag u dirayeen dadkan ayaa la sheegay in baasaboorada ay halkaas ku soo galeen ay kala hayeen dalalka Hindiya iyo waliba dalka Pakistan iyo Bangladesh waxay halkan yimaadeen baa 12 habeenimo waxayna noo sheegeen in aanu diyaarsano boorsooyinka iyaga si aanu u naloo gaxeeyo ayay noo sheegeen kadib markii ay jeelka nooga yimaadeen hadeerto waad aragtaa gacmaha ayaa layga xiray waxaana lay qaadaya ama lay diraya dal aanan u dhalan anigu ma ihi ayuu Bangladesh ninkaas oo magaciisa aan sheegin asagoo ku bilaabay salaanta islaamka isla markaana wuxuu yiri ii soo duceeyay dadka walaalaha muslimiinta ayuu ka yiri muuqaalka barta Twitterka la soo dhigay hase yeeshee mid kamid ah dadka u dooda xuquuqda dadka Rohingya oo leeyahay Naysan Lewin ayaa oo ku sugan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa ugu yeeray dawladda dalka Sacuudi Carabiya inay muujinayso naxariis darro dadka ka soo jeeda gobolka Rakhine State ee doonaya ayuu yiri nolol tan dhaanta wuxuu yiri tan iyo intii ay halkaasi ku sugnaayeen Sacuudiga isla markaana sida dhumalaysiga ay u shaqaysanayeen waxay taageero dhinaca dhaqaalaha iyo quudinta ah ay u fidiyeen dadkooda ku xareysan basaar ay xarunta ugu weyn ee dhinaca qaxoontiga ee dadka soo caray Naysan ayaa waxa uu yiri Sacuudi Carabiya waxa ay dadkaasi ka qaaday faraha ay ka qaaday kadibna waxa ay qaarkood ku aragtay inay baasaboorradii tuureen balse ay ahaayeen dad ku yimid xujay ahaan oo haystay baasaboorro Indian, Pakistani, Bangladesh, Nepalese iyo waliba ku markaasi kale ayuu yiri balse ma jirto ayuu yiri wax muujinaysa in ay yihiin Rohingya ama ay baasaboorka ugu qoran tahay waayo ma jirto ayuu yiri dhalasho Rohingya ah oo sharciyan caalamka lagu ogol yahay wuxuu yiri sida sharciga dalkaasi uu qorayo qof kasta oo ku diiwaan gashan waxa uu dalka ku soo galay dalka oo lagu celinaya balse safaaradaha dalalka Hindiya Nepal iyo dalka Pakistan ayaa gabi ahaan diiday dadkaasi in dalalkooda lagu soo celiyo waxaana kaliya oo ogolaaday baa Bangladesh oo Sacuudigu ay dhaqaale xooggan ku siiyaan arintaasi taasana keentay in halkaas loo celiyo dadka ayaa sheegay in dawladda Bangladeshna ay ku celi doonto dalka Burma oo ay joogaan waxa ugu yeedheen qowleysato bahala ah oo Rohingya u laynaya diin ahaan iyo dad ahaan u doonaya inay meesha uga saaraan ama u tirtiraan si kastaba noqotay dawladda Sacuudi Carabiya ayaan arintaasi ka bahadal isla markaana andhig jalaq u siin halka nagala socotaan warfadhi media dhalinyarada muslimiin ah oo is abaabulay oo dalka Mareykanka waxay qaadeen wadeen maalmihii ugu dambeeyay olole dhinaca nadaafadda ah oo ay ka wadeen goobaha dadku ku nasto ama waxa loo yaqaan beeraha xorriyadda Soomaalidu inta badan ay tiraahdo oo ay dadku ku nastaan kadib markii ay dawladda dalkaasi Mareykanka shaqaalaheedii aysan lacag helin 17 maalmood kadib markii dawladda dalka Mareykanka lagu soo rogay waxa loo yaqaan shutdown ama albaabada la isugu dhuftay qayb ka mid ah dhinaca dhaqaalaha waxa nima yahay kadib markii madaxweyne Trump uu qawaday lacagta dhinaca miisaaniyadda sanadka 2019 kolkaana uu sheegay in hadii aan lagu darin 6 bilyan lacag qarka u saaran oo gidaar iskaga weegaaro koonfurta
dalka xuduudda uu leeyahay Mexico uusan aqbali doonin dadka ayaa waxa dhalinyarada ah ee muslimiinta ah ayaa waxa ay ka muuqatay shacaarta islaamka sidoo kalena waxay la yimaadeen waxa loo yaqaan iskoobayaasha waxyaalahan broomiska la yiraahdo wax dhulka lagu xaaro iyo waliba waxyaalo baco oo qashinka lagu guro kuwaas oo ay caawinayeen shaqaale yar oo kooban oo ku haray goobaha shaqada kadib markii dadkii ay lacag waayeen sidoo kalena dhibaatada dhinaca dhaqaale darrada ayaa laga dareemayay airportada dalka Mareykanka ku wada yaala oo dhamaantood ama badankooda oo dhan ama dhamaantood airportada waxa maamula dawladda federaalka ee haatan xaniban meelaha ay dhalinyaradu nadiifisay ayaa waxa kamid ah halka la yiraahdo Independence Hall ee gobolka Pennsylvania ku taala Everglades National Park ee Florida Joshua Tree in California ku taala iyo halka la yiraahdo Canyon Valley ee ku taala gobolka Ohio dhalinyarada oo bartooda Twitterka aad ugu soo qoriyay qoraallo ayaa yiri nadaafadu waxay kamid tahay qayb kamid ah iimaanka sida uu sheegay subanaha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ee bahayeelo waxaana muujinaynaa kol kale ay yiraahdeen in muslimiintu ay yihiin kuwa gargaara kolka xaaladdu adkaato wuxuu sheegay in islaamku dhan ay fasiraad kaliya ay bixinayso ay tahay in aad wax qabato kolka aad waqtiga hayso talaabadan waa talaabo aan caadi ahayn waxaan ku hubinaynaa in ay yihiin goobaheena lagu nasto ee caruurtu ku ciyaaraan iyo dadku ay ku nastaan kuwa la isku haleeyo korista markaana loo sii markaasi hagaaji karo dadka ayuu yiri mid kamid ah ururka dhalinyarada ee leeyahay Muslim Youth Association ayadoo dhalinyaradu badankooda ay ka soo jeedaan maharata la yiraahdo Ahmadiya Sarmadan Bahati oo 23 jir ayaa Washington Post wuxuu u sheegay tan waa waxa muslimku sameeyo ayuu yiri muslimka waxaa lagu sameeyay magacdil waxaan doonaynaa inaan tusno inaanu qarankan qayb ka nahay isla markaana aan doonayno in aanu nadiifino ayuu yiri sidaas wargeyska la yiraahdo Philadelphia Inquiry ayaa isaguna wuxuu la hadlay wiil yar oo 17 jir oo ka warramay sida uu dareensanyahay waxaan jira ayuu yiri warar been abuura iyo dacaayad raqiis ah oo ka soo horjeeda islaamku nama baro namana tuso ayuu yiri nacayb sidoo kale lama yiraahdo nabcaada dariskiina waxaana la yiraahdaa jacalada dariskiina runtii wax islaamku waa jacayl ayuu yiri waxaan caawinaa dadka nugu xeeran oo dhan ayuu yiri Subeer Cabdullah oo 17 jir oo aad markaas u faraxsan isla markaana ururinayay sigaar dhulka lagu tuuray qoyan waliba oo roob ku daay waxa loo yaqaan hash ururinayay Madiil Cabdullah oo asagoo ah madaxa ururkan dhalinyarada muslimiinta ayaa wuxuu yiri kol kale waxaan hoosta ka xariiqnay in aanu marba la nimaano waxyaalo aysan dadku ka fakareynin qodobada kale wararka warbixinaha dhinaca dunaasiyada aan ku siqo wadaawadaasha qiimaha leh ee dawladda dalka Sacuudi Carabiya ayaa kol kale loo haystaa qaan in la waayay ruux kale Saud Al-Qahtani oo ahaa ninkii asagu bixiyay amarka ah in qoorta laga gooyo Jamal Khashoggi isla markaana ahaa la taliye sare oo MBS ayaa la sheegay in aan meel Chania cib dhigay lahayn tan iyo intii uu soo baxay macluumaadka ku saabsan in uu asagu ahaa ninka amarka ka helay MBS isaguna amarka siisii kooxdii tagtay magaalada Istanbul labadii bishii October ee sanadkii hore si ay u soo qurbaan Jamal Khashoggi haatan wargeyska Washington Post ee ka tirsanaa ninkaasi geeriyooday ilaa hadeerto la laayahay waxa haraadiga jirkiisa meel uu ku dameeyay ayaa waxa ay sheegeen in ninkaasi aan la arag tan iyo bishii November horaan bartamaheedii kolkii la sheegay in xilka laga qaaday taasna ay muujinayso walaac kale oo ah in ninkaasi meel lagu xaseeyay ama isaga laftiisa la isdhaafiyay si uusan u bixin sir ku saabsan MPS ayaa lagu yiri warbixinta Washington Post ayaa waxa ay sheegtay iyadoo xiganaysa dad markaasi dhinaca investigative-ka ama dhinaca investigation-ka oo warbixinta yani baara ama baarayaala ayaa waxa ay tiri waxa aan helay xogo muujinaya in Qahtani aan la hogeyn halka uu ku dameeyay ama halka masiirkiisu yahay lama oga sidoo kale in uu ku sugan yahay dalkaasi iyo in kale Khalil Jahshan oo asaguna ah madax ama director-ka ama agaasimaha la yiraahdo Arab Center of Washington ayaa waxa hay'adda la yiraahdo ayaa wuxuu yiri waayitaanka ama wuxuu yiri ambashada wuxuu yiri Qahtani waa mid kamid ah dhaqamada dabiiciga ah ee Saudi Arabia isla markaana lagu qarbudayo ayuu yiri baaritaanka socda ee heer caalami iyo heer Turki iyo heer dalal kale oo reer galbeed taasoo lagu badbaadinayo MPS oo lagu badbaadinayo wax kasta oo ku xiriirinaya dilkii Jamal Khashoggi waxa ay laga yaabaa ayuu yiri inay hoy ku siiyeen meelo aan cidna aqoonin sidoo kale xataa waxa suuragal ah in ninkaasi la isdhaafiyay ayuu yiri Jahshan wuxuu yiri caalamku waa uu yaaban yahay isla markaana waxa la yaaban yahay dhaqamada Jamal ninka la yiraahdo MPS isagoo dilay Jamal Khashoggi haddana hadeerto wuxuu sameeyay wax kasta Abdullah Al-Moyadi oo ah
ninka u sareeya dhaqdhaqaaqa la yiraahdo Saudi Human Rights oo ku sugan dalka Ireland ayaa waxa uu ku tilmaamay ama ku sifeeyay in tan ay tahay wax awalba laga filayay afkaarta wuxuu yiri Sacuudiga iyo qoyska halkaasi haysta Al-Muyadi wuxuu yiri dadka aan dhibaatada iyo kharbadaada aqoon ee kaliya dalbada ayuu yiri isbedelo yar yar oo dawladda lagu sameeyo waxa lagu ciqaabaa ayuu yiri ciqaabta ugu sareysay heer dil iyo googoon kuwa dambiilayaasha ee wax dilana waxa la siiyaa sariiro ama se marka laga dareemo inay sir bixinayaan ayaga lafkooda waa la isdhaafiyaa horay ayaa waxa hadaba yaab u leh inay dawadaasha qiimaha leh hadaan idin xasuusiyo qoraalkii ay isdhaafsanayeen Umar Abdulaziz iyo Jamal Khashoggi waxa uu Umar Abdulaziz uu sheegay oo wali asagu nool markuu Jamal Khashoggi uu kula hadlayay bartiisa WhatsApp-ka wuxuu ku yiri waxa laga yaabaa ninkan xumaantiis ma waxa hadalka waxa qoray ninka la yiraahdo Jamal Khashoggi Allahu naxariiste ayaa wuxuu yiri waxa laga yaabaa ninkan inuu xitaa dilo oo uu laayo ku asaga u shaqeynay waxaan moodaa inay darwo soo baxday oo runtii qofka uu kaligi taliyuhuna dhibaatooyinka uu leeyahay cidna saaxiib lama aha qofka danaystaha hayna cidna saaxiib lama qofka dantiisa markuu kaliya uu wato wuxuu doonaba masiir ku gaadhay waxaad moodaa in ay shaydaanka aad isugu dhow yihiin ama ibliiska waana sida muuqata hadeerto runtiina wuxuu yiri wuxuu ninkan sheegay in laga yaabo in dad kalena la waayo si loo badbaadiyo Mr. Khashoggi Mr. MBS oo looga badbaadiyo dilkii Khashoggi waxa kale oo la sheegay in dhawaan dawladda Sacuudiga waxay sheegtay inay dishay 5 ruux oo ay diltooda ku xukuntay cid aragtay iyo kuwa yihiin iyo xitaa 15 nin dilka geystay inay iska nool yihiin oo dalka Sacuudiga dhinac ka galeen waa suuragal oo magacyadii laga bedelay oo baasaboorro kale ay qaateen marka runtii wararka dhinaca diblomaasiyadda caalamka fahamka markaad ka qaadato waxaan heli karnaa warbixino isdaba jooga oo xataa la xiriira kuwii hore daawadayaal dalka Turkiga qodobka ugu dambeeyana madaxweynuhu wuxuu sheegay in qorshe kale yihiin habka ay tahay inay u nabadeeyaan isla markaana ay uga taxadiraan siyaasadda dalka Suuriya madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu warbixin ku qoray New York Times oo dhawaan isaga warbixin ka qortay isla markaana warbixin dheer ka qortay ayaa isaguna warbixin dheer buu ku qoray waxayna muujinaysaa sida warbaahintu transparency u tahay yaani warbaahinta caalamiga waxyaalaha lagu yaqaano ayay ka mid tahay inay sheegto dhacdo kasta isla markaana qofku markuu isdifaaco xitaa wala soo dhaweeyaa khurfada media wasaas oo kale warbixinaha markaan warbixino sii deyno waxa jira in warbixino kale aanu helno warbixinaha kale waxaan baaritaan ku sameynaa dheeraada isla markaana markaan aragno in wax la isku haleeyay waa almuhiim ama waa muhiim jiddan in aan la wadaagno daawadayaashana qiimaha waa warbaahin transparency wasida oo tahay waan runtii wasida ugu fiican ee loo sameey karo markaasi warbaahin isku dheelitiran wuxuu sheegay madaxweynuhu wasoo qoraal ka hadlay in ay isla afkarteen madaxweynaha Mareykanka in qaabka looga baxayo dalkaasi uu noqdo mid taxadar leh wuxuuna haba yaraatee uu sheegay inuu wax shakiya ka qabin jiitmaadka ciidamada ku yimid kadib markii janamada madaxweynaha Mareykanka iyo asagu ay iskaga hor yimaadeen arrinta Suuriya wuxuu sheegay in uu dalkiisu yahay dalka labaad ee ugu awoodda badan gaashaanbuurta NATO kolka ay timaado ciidan badnaanta iyo qalabka wuxuuna yiri waxaanu diyaar u nahay in aanu bedelo Mareykanka sidoo kalena waxaanu durbo diyaarsanay ayuu istiraatiijiyad aan uga soo horjeedno ciribtirka kooxda Daesh ee argagixisada oo sheegay in Turkiga uu haysto wax qaab loo ciribtirayo wuxuuna sheegay dhamaan deegaamadii qabsadeen inay guri u baareen isla markaana guri kasta magaalo kasta iyo degmo kasta kasoo bilow magaalada ugu weyn ee deegaankaas Afrin iyo Al-Bab ay og yihiin ruux kasta ku nool isla markaana ciidamada Free Syrian Army la yiraahdo uu siiyay tababar heer sare ay ka hortagaan arrimahaas wasiirka arrimaha dibadda ama xogayaha difaaca Mareykanka Mike Pompeo ayaa isaguna wuxuu sheegay in dawladda Turkigu ay ballan qaaday inay badbaadiso waxa ka haray kooxda YPG ama Turkey ama kooxda leedo Police Protection Units oo aysan cirib tirin hadii ay markaasi ay wadanka oo dhan ay ku turkaan waa Turkida wuxuu Turkiga la sheegay inuu asaguna codsaday in qarabka military oo dhan YPG laga soo wareejiyo barnaamijkii daawadayaasha qiimaha leh dhulmar iyo qodobo xiiso leh daawadayaasha qiimaha leh iyadoo aysan faray ka qodnay qodobo aad u yaab leh ayaa noo soo socda oo runtii ku saabsan dagaalkii labaad adduunka credit cardka iyo arrimihiisa Jarmalka iyo sidii loo burburiyay Yuhuudda iyo sidii dunida u qabsatay Yuhuudda iyo xasuuqii ka dhacay ee Jarmalka ujeedooyinkaas iyo kuwa kale iyo sababtii Yuhuudda ama xasuuqii Holocaust ka dambeysay iyo wixii lagu eedeeyay ayaa kamid ah qaybahan iyo qaybo kale